السلام عليكم ورحمة عليكم الله ورحمة الله وبركاته. وبركاته. كعدك كسر ده يوتيوب channel كنا وأنجي مركا فيديو ما أنت حني وانا فيديو هذا حسب بدن مركا مقعي وأنا يعيش جل كداون وأنا يعيش official يوتيوب كسر ده نجي على شيء magacaygu waa Abshirtoonka. بطر أصحابته ما أنت حني وانا أنا صاحب ده سماتري أشجعك حني وانا فيديو يعني sheekooyin badan waan ka qofin doonaa hadii la yiraahdo marka fiidiyooga ayaan bilaabaynaa hadii la yiraahdo ku soo dhawaada fiidiyooga sheekooyinka waxay yihiin kor dhicmeen qof walba sheeko keenaya qof walba xal leeyahay adigu sheeko keen yani ama soo diyaarsada ama hadda kiis haade qof walba sheeko keenaya ana sheeko qof walba Hal sheeko wey. hal sheeko marka ku soo dhawaada fiidiyooga sheekooyinkan bilaabanaynaa tan waan bilaab Ma bilaaba. no below sheekooyin Halba. midigta laga bilaabaa la jiro sidee Tigta laga bilaabo digta. Asxaabta horta waa marka hore waan salaanay. Salaan kadib waa horta waxaan soo fadhiisannaa xaggan challenge u duubaynaa follow u duubaynaa waa raaligelintiina kulli. Marka maanta sheekan aanu nihayaa ani ahaan ninkana sheeko. Marka sheekadaydu waxa weeye sida tan weeye marka qofka waxay ka dhacday natiijiga masaajidkana dee waad aragteen sida saxda ah marka salaada la tukanayo sheekhu wuxuu yiraahdaa istow dhinaca banaana buuxiyo dhama marka sheekhu markuu dhahay dhinaca banaana buuxiyo ayaa wuxuu yiri dhinaca banaana buuxiyo hadii kala shaydaan baa soo galay marka xariif meesha ku tukanayay oo dee salaad soo tukaday bay shaydaanka hadii ilaahay soo hanuuniyo shaydaanka hadii ilaahay soo hanuuniyo maxaad ku diidaysiin tukaday maxaa meesha lagu bixi ma tukaday hadii ilaahay soo hanuuniyo استاذ لكن ده يعني شيطانك سوق وش قال لي ماشي وانت صلاتك في وصوصي ده لا لكن يسوي حمودي عارف إلى بس هون ديت كذبي انه صلاه تكون يوميه استوديو كذا وصوصي يا كل شيكا صوصي دير رماي راسي ركسن سبت روش كده عندنا hal sheekeen igu كان شكل نوترا شيكا aan sheekooyina saan basi xasuustay laakiin mid baan yar xasuustay oo deegeer qosisay inta badan نقول مت كان كل وصل لنا midaas niyo waxay beri dhaweyd bay haydo gabadh baad bas bay soo raacday marka gabadhu ilmo yar bay wadato niyo bas markay soo raacday yaa baskii yar buuxsamo oday baa soo carro odaygii baa gabadhii ku dhiga durugday in yaroo banaani gabadhii baa isaadkaysan ku tiri gabadh hore inay maxay bas ku buuxayo saas odaygii baa xanaaqo ilmi yar aad ka caayay markaas ku yiri ilmo yar foosho xulle xaga nabad ma fadhiisan karaa meesha gabadhii wata xanaaqday baday mid kale xaga ka xigay baa ku yiri maxaa ku leeyahay ilmo yar biga caaya muxuu yiri foosho xulle ii kale laga sugay inuu ku yiraahdo ilmo ma faan xulo qurux badan yo ya inuu niyada ay ku leeyahay saxiibka oran ka soo aarniyo ana ilmo daanyarkan ku siiyay daanyarkan ku siiyay golaha xagu ka sugay inuu u amaano ay iska leeyahay daanyarkan ku siiyay orod odayga ka soo aaran maalka sheekada ya fani waa aniga gabadha wata laba xagga wala wada caayba ya gabadha ka ilmaha ka wada caayaba xariifka ilaa waa waxbu kula qabanaya ilmuhu ka qabanaya wax si caayba ya uu daanyar ku tilmaamay falxumay marka hore ayada raasha ka fariyaa si wanaagsan marka xabadkayga waa haray xabadkaygana waan tuuraya marka anigana waxa leega sheekeeyay sheekadan marka xariif baa wuxuu ahaa nin lacag badan ama taajir saa u garanaysiin yani lacag badan buu haystay xariifku bashaarad iyo waxa uma baranin baasho iska haysto ku bashaalo u yaqaanay marka dee adduunka garanaysaa mar bay kusoo dhacdo iska bashaarooday lacag laan baa ku dhacday lacagta ka dhamaatay marka isagoo bashaarad qiiqayo magaalada dhex maraya ayaa xariifka waxaa la dhahay warniyo maxaa dadku weydiiyaan lacaguna wardi bashaaradan waxay kala qabto maxay mu dhahawna kaal warmaada ogeyniyo xariif islaan waxaa joogta magaalada qofkii salaamo bas yani assalaamu calaykum qofkii dhahaa lacag siinayso waa daa asla 2 milyan baa lagu leeyahay assalaamu calaykum baa 2 milyan bas ku xiran tahay xariifka 2 milyan markuu maqlay maskaxda ka wanaatay salaana waanu cagayn biyo dal ugu tagay meesha ay sheegay salaam qura lacag ku siinayso talo maxaa ka dambeeya warda caafimaad kulli wax sabab bixinaysa lacagta xariifka wuxuu yiri wallahi waanu tagay inta kale islaanta waxay salaanta dadka ay u salaaminayeen qofka salaamay lacag u siinayso waxa weeye quruxu
waa yani de waa qof foolxuna biniaadan fiirin karin waa nooca la fiirin karin waa nooc ugu dambeeya falxumo lacagta loo bixinaya waa u bixinayso dee hal salaam dadkii way islaamayeen waa ka jeesadaan wejigeeda la fiirin lahayd xariifkan wuxuu yidhi waa loo sheegay da inay saa tahay wuxuu yidhi maya anu maanta basaaradda haysa foolxumo iska day wax walbaan u fiirin lacagtan waa soo qaad waana salaami xariifku basaaradda marka hore weelisba wuu soo tegay oo dee albaabkii buu soo gargaraacay islaantii buu yimid albaabkii buu soo gargaraacay islaanta quruxleed baa soo dhaqay islaantii baad yani albaabkii soo dhaqaaqdo furaysa iyada joogto iyada furaysa dee xariifkii albaabkii baa soo gargaraacay oo sidaaba iga furtay markaasuu wejigeeda ku arkay buu yidhi soo xir albaabka ilahay baa israqada wejiga arkay ba wish bedelad wax kale arkay ilaahay baa oga arkay malag naarta joogo arkaa malag markaasuu yidhi ilaahay baa israqada bixiye albaabka soo xidhay yuu iska noqday horta dee waxaan ka yaaba mataqaanaa ninka lacag saa u doonaya aniga maanta iga soo qaad anigoo lacag saa u doonaya oo 2 milyan oo lacaga wax aan fiiriyo oo iga xiran tahay ama aan salaamo waxaan tan fiirin waaya ka noqdo waa la yaabaa isfalcodiisa hal sheeko qosla nigu daray waaba waxa liiga dhacday nin iyo naag baa soo guursaday nin iyo naagti markay soo guursadeen aduu way isticmaalaan wiil gabadh baa markay soo guursadeen aduu khilaaf dhexdooda yimid isiyar khilaafeen gabadha ayaa gardarnay gabadhi baa gardarnay guriguna dee wuxuu ahaa guri bilfoon ba dhexdooda u dhexeeyo qofku markuu halkaa fadhiyo kana wiilka hadduu halkaa fadhiyo gabadhna halkaa fadhiyo ismaqlay wuxuu qofku dhaho marka wiilkii baa gabadhi baa cadhooto waxay tidhi ninkan lugahaaga hoos maajisaa soo guursaday isna wuxuu isleeyahay naagta haddaad maanta isku jabiso waa isku cusubtiine inta cimrigaaga ka hadhoon dhan saasaad u daba socon isku adkeynaya toddobaad markay cuntaday karisaba markay hor sida aygan bay meel u dhigtaa u cunaa lama hadlaan hawshii reernimo markay wax iskaga baxdeen waxay isku soo gursayna loo baahan yahay loo baahan yahay aad ha isku cadhoodeen toddobaadna wada joogaan weli dagaal ma dhicin kara dagaal ma dhicin still waxa ka xiglo dagaalka la wada muqaadayo wiil xariifka fikrad keenay muqaadayo intuu bilfoonkii fadhiistay dhinacii u dhaweydee looxa u dhexeeye buuri ilaahayow aad aragtaay buuri soo wado usoo wada dharteeda iyadna iskaga baxnaydo isagu maqshiinay iyadna way maqlaysmaa isna iyadu maqshiinay way kacdayo halkii laga sugayna wax kale xasuusto ilaahay xaggeedii wataa ya ilaahay xaggeedii wataa way ka biis iskentay laba story kala wala wallahi laba story xarfadda waxay ka dhigtayba ducadii ninkii in loo aqbalay oo yani ilaahay wuxuu ka codsaday in loo yeelo ilaahay soo qaado u keenay maqlaysaa iyaduna ogaan isay maqashiin ilaahay xagee wadaan marta sheeko wala beed wallahi marka sheekooyinkii intaa naga keenay waan sheekanay saddexanadaba marka waan rajaynaynaa inaad qosli doontaan insha Allah saan u qosolay si ka badan u qosli doontaan rajaynaynaa insha Allah oo nala qosli doontaan fadlan YouTube channelka dad ku cusub tahay subscribe noo saar like share tala ku caawiya commentiga naga bakhaylina waxaba dalow steer niyo qoslin inuu noogu qosliyo naga fadhiyo sida ugu